بسم الله الرحمن الرحيم waxaan runtii aad ugu faraxsanahay in ay timi maalintii aynu muddo beer sugaynay ee alla idmo jimcaha dambe ee bishu tahay 13 bisha 8aad 2022 magaalada Hargeysa waxay nasiib u yeelatay in aynu u ducayno xusno xasuusano abwaankeennii qiimaha iyo qaayaha fara badan inagu lahaa qof murti fara badan inooga tagay qof mufakir oo wax badan inoo sheegay Allah u naxariistay xasan qowdhan waxa aan aad ugu mahadnaqayaa kuna faraxsanahay Axmed in karaama ilaahay ha karaameeyo xilka uu inaga furtay inay tahay xilina wada saaraa xil aniga saaraa hadaan ahay jaamac muuse xil xaruntan saaraa xil qof kasta oo garanayo ummadani waxa ay milarkooda qiimaha leh ku yihiin qof kasta ogaa inuu wax ka reebo cidii ay ahayd inay xusuustaa hawsheeda qabata in Axmed hawsha inaga qaaday ilaah baan oo ilaahay garansiiyay waxaan ilaahay uga baryay inuu wax wanaagsan ugu bedelo xilka uu naga qaadina ajarkeedii aan ugu ducaynayna kuna garab taaganahay isna garab taagayna ilaa intaan gaarsiin karno fariintana gaarsiinayna insha Allah waxaynu la kulmi doontaan xog aan idin aqoonin oo aan idin meel fara badan ka aqoon marar fara badan ilaa muddadii u dambeysay ee Allah u naxariistay xasan qowdhan anagu gaarka isugu xidhnayn waxyaabahan dhalinyarada kala kulmayay waxa kamid ah marka ay maqlaan in ama heesay xasuustaan ama maanso kale xasuustaan ama sheeka faneed ay xasuustaan oo isagu leeyahay in aanay u garanin isaga ay ku baraarugaan marka dambe oo yiraahdaan Allah taana ma xasan qowdhan baa lahaa gaar ahaan xilligii Somali Week Festival ee ay maansooyinkiisu dib ugu soo noqdeen inay maaragtay la xuso oo ay dib ugu soo noqdeen media taas waxay ku tusaysaa xasan waaninka Allah u naxariistay gaarigiisa watay shaqaysanayay markii uu fanka ku jiray iyo markii aanu fanka ku jirin iyo horaanteedii dibadeed baa qof umada isku haya qof naftiisa ku filan qof fanka uu u yahay in uu mid umada wax ugu sheego inta badan aanu ahayn mid amal ah oo ka shaqeeyo oo boqolkiiba boqol ka shaqeeyo waxyaabaha kaga duwanaaba kamid tahay fanaaniintii kale iyo abwaaniintii kale iyo suugaanyahanadii kale iyo wax sheegii iyo wax aqoonkii umadan ilahayd ee aan muddada far badan la soo shaqeynay ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariisto jannada firdawsa ka waraabiyo Axmed Karaamo waxaan leeyahay ilaahay jazaakallahu khayran hawshaad noo qabatay annaga naga dul qaado ayna dul saareed inta ehelka u ah fikirka iyo suugaanta iyo fanka aynu leenahay baad xilka ka qaaday waa ku garab taaganahay insha Allah dhamaan reer Hargeysa iyo inta soo gaari karaysa iyo inta nagala socon karaysa hawada dibadda online baan u sii deyn doonaa intiina nala socon karaysa waxaan idinku marti qaadaya in habeenka jimcaha soo socda ee bishu ay tahay 13 aynu harsugu nimaadna Hargeysa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim xayeysiin ma baahna runtii iyo eray laga yiraahdo xasan qowdhan ilaahay xayeysiina ka waraabiyeen wuxuu ahaa abwaan runtii eray macaan murtidiisu ay tahay mid aan ilaabayn buuggan hadda uu qoray inankan aynu saaxiibka naysnaan Axmed Karaama waxa la runtii ilaahay ka abaal mariyo buu qalmaa xasan qowdhan buugii laba in laga qoro waan u baahanahay in aynu ka qorno buugga iyo qaar ka badanba murtidiisuna buug kaliya kuma koobna laakiin dadaal bisamiyada waxaan xusuusinayaa oo jeclaa lahayn xusuusiyo dhalinyarada buugaagta qoraysay ka qoraysay abwaanada inay laba u kala qaybiyaan oo mid la leeyahay profile-ka abwaanka oo taariikh nololeedkiisa midna uu noqdo wax soo saarkiisa haba wuxuu hadii hadda mid laga hayo Karaamo waxa leeyahay ka labaad qoraysa ha noqdo taariikhdiisa oo qaaliya soo barbaaray u koray halka ku noolaa ubadkiisii ayaa ka sixiisa badan wax soo saarkiisa wuxuu nin halgamaya min dalka ka qayb qaatay ismihiisii iyo halgankiisii dadka Soomaaliland iyo haday tahay ababinta kobcinta iyo korinta in guud ahaan dhaqanka waxaan kula talin lahaa in kasta oo jecel in dhaqanka inay wax ka bartaan inay buugan akhriyaan xasan qowdhan nin abwaan ahaa oo wanaagsan oo la yaqaanay annaguna naqaanay xoogay Allah u naxariisto annaguna wala shaqayn jiray ilaahay meel wanaagsan ha geeyo ilaahay jannada ha u barwaaqeeyo ilaahay damkii ilaahay meel wanaagsan ha geeyo anigu dabarigii hore intii uu isla koonfur buu ku maqnaan jiray xagga East Africa ana Ethiopia iyo baan isbarashada waxay u badnayd intii aanu la dhaliso raacay oo waxay ahaayeen rag aanu la dhaliso raacay oo kamid ahaa kolka in badan baanu sheekaysanay
wuxuu ahaa nin aad iyo aad ilaahay xikmad ugu bannaystay oo dulqaad ugu bannaystay oo dadka laba inay isjiidaan aan jeclayn ama laba ay isdiidaan oo labadii ruuxo iskhilaafaba jecel inuu heshiisiiyo wuxuu ahaa nin xikmad ilaahay ku bannaystay kolkaa oo deeqsi ahaa oo aad iyo aad u deeqsi ahaa. bismi illahi raxmaan raxiim. abwaan xasan qowdhan waxa weeye nin aad iyo aad qaali ah. wuxuu ka mid yahay ragga mataqaan kaalinta weyn ka qaatay masraxa Soomaalida ragga ka qaatay ayuu ka mid yahay. hadday noqoto riwaayado uu sameeyey oo alifay iyo hadday tahay heesaha faraha badan ee uu leeyahay alifay uu qaado isagu. marka wuxuu ahaa nin abwaan hibooyin badan isugu jiraan, mu'alif, muusikiiste, heesaha. marka dhaqanka Soomaalida ilaawi maayo. waxaan aad ugu mahadnaqayaa qoraaga buugga Axmed Yare. adeer aad baad mataqaanaa yani wax fiican baad qabatay, wax badan oo inaga lumi lahaana waa halka waad inoogu soo koobtay. marka waa khayr badan maanta in dhallinyaradii maanta ay qorayaan abwaanada qaaliga ah ee taariikhda masraxa wax ku leh inay buug ka qorayaan. waa aad iyo aad bay wanaagsan tahay. wax lagu hambaliyeeyo weeye, wax lagu mataqaanaa ammaano weeye. aad iyo aad baan mataqaanaa waa istaahilaa abwaankanu in generationka ama faca cusubi ay u soo gudbiyaan suugaantiisii iyo taariikhdiisiiba jiilka cusub. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.